kadib markii mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya maalinnimadii Isniinta ahayd ay codka kalsoonida siiyeen xukuumadda Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo maalmihii la soo dhaafay hadalhayntoodu ay ku badnayd goobaha isugu yimaadaan bulshada Soomaaliyeed ayaa habeennimadii xalay TV-gan caalamiga Universal waxa uu gaaray qaar ka mid ah goobaha lagu qaxweeyo ee xaafadda Soomaalidu ay ka degan tahay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxa uuna mikrofoonka la dhexmaray dadkii halkaasi isugu yimid iyagoona si isku mid ah u soo dhaweeyay xukuumadda cusub. Sidee u aragtaa ansixinta golaha wasiirada cusub? Waxaan u arkaa arrin lagu tilaabsaday oo horumar u ah danta iyo dalka Soomaaliyeed. Waan u hambalyeeynaya dardaaranna way wehliyaa. Dardaarankaas oo xukuumadda cusub oo aan muddo sugeynay in ay noqoto xukuumad aan uga raysano xukuumadii hore oo aan soo marnay oo wax la taaban kara qabata waxa inta ka dhiman 2016 waxaan aad u soo dhaweynayaa ansixintii maanta la ansixiyay golaha wasiirada. waxaan jecelahay golaha wasiirada in ay noqdaan kuwii ugu dambeeyay mar dambe aan wasiirada dambe dib loo keenin ilaa 16 baarlamaanka ansixin golaha wasiirada muddo dheer ayaan sugeynay kulli ayagana wixii aan ka sugnaa waxa wax qabad wanaagsan hoolo aad u adag ayaan hor yaal waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa golaha wasiirada maanta la ansixiyay oo baarlamaanka ansixiyay haddana dhalinyarada South Africa ku nool aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa baarlamaanka ansixintiisa waana ku taageeraynaa si aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa haddana dhalinyarada South Africa waana dhiirigelinaynaa dawladdu inay si fiican u shaqeyso insha Allah annakuna haddana dhalinyarada South Africa inaan wax weyn ku biirin doono waddankayaga ayaan rajaynaynaa. Bismillahir Rahmaanir Rahiim aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay wasiirada cusub wax walbana waxaan jecelnahay inay ku hagaagaan sida loogu talagalay. waxaan leeyahay aniga baarlamaanka aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan u sheegaynaa inay macnaha nin walba uu qabto jagadiisa uu si fiican uga soo baxo. golaha wasiirada waxaanu aad uga codsanaynaa golaha wasiirada maadaama ay shaqooyinkoodii ay ka daaheen muddo badan la sugayay in ay hawshoodii dadajiyaan si dawladdu ay u higsato higsiga ah 2016 saas darteed macnaha waxaanu kaloo ka codsanaynaa wasiirada aysan macnaha mataqaana ay dantooda ay ka hormariyaan danta ummadda guud ee shacbiga Soomaaliyeed ee haatan u baahan hiil iyo hoo dhibaato jahli colaad abaar nooc walba ay dilootay. Bismillahir Rahmaanir Rahiim haddaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool ama ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika waan soo dhaweynaynaa xukuumadda cusub. waa xukuumaddii saddexaad oo ay yeelato dawladda uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda Soomaaliya ha yeeshee xukuumaddani ayaa looga fadhiyaa in ay la timaado habdhaqan siyaasadeed oo ka bedelan xukuumadihii hore ee dalka soo maray si loo gaaro higsiga 2016 oo ah madasha dawladda federaalka Soomaaliya. Xasan Kaafi Maxamed Shire telefishinka caalamiga Universal magaalada Cape Town.